السلام عليكم أخياري. فيلمكن waxa uu ku bilaabmay sanadku markuu ahaa 1980 wadanka Sacuudiga oo ay baark iyo doonka kaga gadanayaan ama kaga iibsanayaan hub casri ah madaxa maafiyada oo ka tirsanaan jiray ciidanka Kuuriyaanka markay iska hubiyaan hubka waxay siinayaan lacagtiisa sidoo kale madaxa maafiyada wuxuu ku dhaxayay waan ogahay inaad ku dheereysaan kaxaynta gaadhiga wuxuuna u soo bandhigayaa tartan gawadhi oo Mareykanka lagu qabanayo laakiin ciyaar ma aha waxay u baahan tahay lacag badan waxayna ku oranayaan way nagu adag tahay sida dhaqsaha badan inaan ku keeno lacagta aan Mareykanka ku tagayno ugu dambeyn waxay go'aan ku gaarayaan inay ku laabtaan wadankoodii Kuuriya waxaana halka jooga oo ku soo dhaweynaya John oo intay ka maqnaayeen taxi darawal ka noqday kadib markay u yimaadaan ay salaameen ay shandadahoodii taxiga ku ridanayaan iyagoo hawshii wada ay markiiba waxay arkeen rag daba socda oo ku labisan muraayada ama kayaala iyo suit uga shakinayaan inay yihiin askar kadib gaadhiga ay fuulayaan wayna ka baxsanayaan iyagoo waliba shandadahoodii bar kamida meesha kaga yimi cabsi awgeed raggiina sidoo kale waxay ka xaysanayaan gawadhidoodii waxayna baacsanayaan ama eryanayaan John iyo Bark ay ugu dambeyn gaadhaan xaafadihii ay yaraantoodii ku soo qaateen oo ay baabi'inayso dawladdu iyadoo u aragtay inay tahay meel istiraatiiji ah oo lagu qaban karo ciyaaraha Olombikada isla markaana dakhli ay ka sameyn karto iyadoo sida xaalku yahay ayuu Bark si kaliisa u arkaya gaadhi midabka guduudka leh oo hortaagan waxaana gaadhiga wata galaaji oo ahaa mid mar walba jecel uu ka guuleysto Bark kuna farxa guuldaradiisa kadib gaadhiga ayuu ku soo dhaqaajinaya Barkna wuxuu rabaa inuu xirfadiisa waxoogaa xaysiin oo uu sameeyo kadib gaadhiga ayuu xawaaro ku soo kaxaynaya markuu in yar u jiro ayuu u jiidaya handbrake waanu ku dul wareegaya oo isla markaa meesha ka kiciyay board ama ciid aad u badan heer uu gaadho inuu galaaji waxba arki waayaba waxaana isla meesha markiiba imanaya kuwii si yar oo qosol leh ayayna isku hor istaagayaan galaaji iyo rag Bark iyo asxaabtiisuna way ka baxsanayaan meesha waxayna tagayaan meeshii ay gawadhida ku hagaajin jireen oo imika noqotay meel weyn oo shaqaysa lacagna soo saarta waxaana meesha ku soo dhaweynaysa walaashii oo lagu magacaabo Yoon Hee kadib gudaha ayay galayaan waxoogaa ayayna sheekaysanayaan se markiiba waxa maqlayaan albaabka oo xoog loo garaacayo la iskuna dayay in la furo markiiba waxay soo qaadanayaan hubkooda iyagoo raba inay iska dhiciyaan waxay arkayaan inay yihiin askartii eryanaysa ama baacsanaysa wayna naxayaan madaxa askartu wuxuu ku oranayaa waad xidhantiin dhammaantiin maadaama lacag khaldan wadanka soo geliseen isla markiiba Bark waxa uu ku oranayaa lacagta wadanka dibadiisa ayaan ka soo shaqeynay ee waxa khalada inaan caasimadda hub soo gelino sidoo kale askarugu waxa uu ku oranayaa waxa mamnuuca Yoon Hee inay iibiso alaab aan cashuurnayn John waa dambiile ku shaqaysanaya taxi bila cashuura mid walbana wax buu ku eedeynayaa waxaanu amrayaa in laga qaado lacagta ay ka soo shaqaysteen wadanka dibadiisa Bark iyo Dongo waxay dhammaantood laga xukumayaa 11 sano xabsi ah sasikadiisa ayuu isku bedelayaa madaxa askartu wuxuuna ka oranayaa waan ogahay inaad rabtaan inaad ka qayb gashaan tartanka gawadhida Mareykanka waxaan idin geynayaa Mareykanka laakiin ka hor taa waxaad ku qasbantiin inaad noqotaan sirdoon hawsha la idin ka rabaana waa inaad wasiiradii hore Lin iyo gacanyaraheedii Master Lee iyo waliba nin ciidanka Kuuriyaanka ka tirsanaa oo xubin muhiim ah ugu jira iyaga waxayna ka shaqeeyeen dhoofinta hubka daroogada iyo wax kasto sharci darro ah waa inaad xoga cadeyna inay waxaas oo dhan qabtaan ka keentaan dawladuna bilaa cadeyn ma soo xiri karto kadib Bark waxa uu ka dalbanayaa inay u sameeyaan fiisihi ay ku gali lahaayeen waxa uu ka oranayaa isku diyaar inaad noqoto darawalka wasiiradda waxaana laga duubayaa video xaysiinaha kadib waxa uu ka oranayaa ma haysana gaadhi waxaan u baahanahay gawaadhi xawaaro leh waxa uu ka oranayaa waa inaad habaysataan idinku tanna waa hawshiini koowaad kadib waxay isku dayayaan gaadhi gawaadhidoodii kamid ahaa inay habaystaan oo asal ka dhigaan si uu tartanka uga qayb galo maalinkii labaad waxay imanayaan goobtii tartanka waxaana la tartamay dad badan oo ka mid yahay galaaji kooxdana waxay ugu magac darayaan saaxiibkood Bark kadibna tartankii ayaa bilaabmay Barkna waxa uu ka hormaraya dhammaantood halkii inta kale ay shil galayaan macal galaaji shil ayuu galayaa hamigiisa ugu weyn waxa uu ahaa inuu ka guuleysto Bark ayaa ugu dambeyn guuleysanaya sidoo kale waxa TV-ga ka daawanayay wasiiradii iyo gacanyaraheedii waxayna ka helaysaa xirfadda Bark kadibna afartoodiiba wax lagu casuumaya hotelkii wasiiradda halka kula kulmayeen wasiiradii Lin waxayna ku oranaysaa shaqadiinu maanta laga bilaabo waa qaadista alaabta aan idin dhiibno halka la idin dhaageena waa inaad geysaan idinkoo haba yaraata alaabta eegin kadib waxa loo sharaxayaa wadooyinka ay marayaan iyo halka ay geynayaan alaabta oo ogolaanayaan hawsha ay dantooda ku jirtay kadib cabitaan ay cabayaan heer ay dawaqaan oo ay qeyliyaan waxay rabaanna ay iska sheegaan dibadda ayay u soo baxayaan iyagoo raba inay guryahoodii ku laabtaan ayaa waxay si kaliisa u arkayaan ilaaladii wasiiradda iyo gacanyaraheedii wuxuuna ka oranayaa waa la idinku soo raacaya gaadhigan muhiimadiina koowaadna waa inaad gaadhigan cusub iibsataan welibana uu ka gubayaa kadib waxay u tagayaan madaxii askarta waxayna u sheegayaan wixii lagu yidhi kadib waxa uu ka oranayaa anaa idin haya gawaadhidii u dambeeyay ha ka warwarina dib way ka helayaan waxayna isku darayaan 4 gaadhi si ay uga soo saaraan hal gaadhi oo xawaaro leh isla markaana wax badan qaadaya iyadoo ay sidaa tahay waxa soo gelaya askarigii ninkii ka sareeyay
wuxuuna u sheegayaa inay arrintani halis tahay kuwanna sida ay ila muuqata kama soo bixi karaan hawsha. Markiiba wuxuu ugu jawaabayaa way ka soo bixi karaan ee aan waqti siino. Bark iyo asxaabtiisii hawshoodii ugu horreysay ayay bilaabayaan oo ahayd in alaabaha u kala gudbiyaan magaalada, waxayna dhaafayaan checkpointiyo aad u badan wayna ku guuleysanayaan. wasiiraduna nashqad ayay u soo dhiibaysaa gabadh kuwa la shaqeeya kamid ah, waxayna la dhacaysaa sidoo Bark hawsha u wada. Sidoo kale waxay siinaysaa guri kamid ah guryaha ugu qaalisan Kuuriya, 200 milyan oo lacag ah. aad bayna u farxayaan oo gurigooda cusub bay waqti ku qaadanayaan. Kadib Yoonhee ayaa u imanaysa saaxiibkeed, waxayna ka dalbanaysaa inuu u raaco ciyaarta Olombikada. Waa uu ka diidaya oo waxa uu ka oranayaa hawlo badan ayayna sugaya. Kadib waa ay raacaysaa marka laga reebo Bark iyo Dongo oo iyagu meel ku socda, waxayna arkayaan gaadhi weyn oo hor socda. Dib waxay isku dayayaan inay dhan ka dhaafaan, laakiin waa uu diidayaa oo wadadii ayuu ku ciriirinayaa. waxaana soo dabagelaya 2 gaadhi oo kale, waxayna ku qasbayaan inay gaadhiga istaajiyaan Bark iyo saaxiibkii. kadib labadii gaadhi waxa ka soo degaya Mr. Lee iyo ilaaladiisii, waxayna qabanayaan labadoodii iyo labadii kale Yoonhee iyo saaxiibkeed. kadib waxa uu ka oranayaa yaad la shaqaysaan baaskoolad, ayuuna ku qabanayaa Bark walaashii Yoonhee. Bark ayaa ka oranaya cidna lama shaqeynay, aniga idil hadilin walaashay. kadib waxa uu go'aansanayaa Lee inuu dilo Bark maadaama ka dalbaday. markuu xabada ama baaluutada ku dhufto waxay noqonaysaa fake prank ayuuna ku sameeyay si wax uga hambalyeynaya inay yihiin kuwa sirta ka dhaxaysa qarinaya. sidoo kale waxa uu ku dhahayaa ogaada haddaad cid u sheegtaan waa idin dilaya baaskool runa, ayuuna markan cirka u ridayaa si uu uga cabsiiyay iyaga marka. isla waqtigaas John waxa uu la kulmayaa gacanyaraha wasiiradda, muhiimadiisuna waa inuu helo furaha qolka wasiiradda si uu cadeymo badan halka uga helo. waxa uu soo dhawaanayaa gacanyaraheedii, wuxuuna la sameynayaa xiriir jecel oo been ah. markay baxda ayuu koobi ka sameysanayaa furihii. sida kale Bark waxa uu tagayaa madaxii askarta, wuxuuna u sheegayaa inaanu shaqadan ay asxaabtiisu halista u gashay sii wadi karin. kadib wuxuu ugu jawaabayaa haddaad diido iska ilo Mareykanka, xabsiga ayaad dhammaantiin gelaysaa. Barkna waxa uu ka oranayaa taas aniga muhiim iima aha ee maxaad u xidhaysaa generaalka iyo wasiiradda. kadib wuxuu uga jawaabayaa waddanka ayay dhaceen dahabkiisa iyo dhaqaalihiisiiba, waxayna rabaan inay ku raaxaystaan xoolaha masaakiinta. Bark waxa uu ka oranayaa taas aniga waxba igama gelin, kaliya aniga iyo asxaabadayda waa inaan badbaadnaa. midda kale waxaan rabaa inaan ka qayb galo tartanka, mana ihi qof bilaa hadaf ama hamiya. kadib waa uu isaga tegaya, waxaan u tagayaa asxaabtiisii isagoo ku leh soo gurta alaabtiina, halkan waynu isaga tegaynaa, ma shaqaynayno sirdoonka. markiiba John waxa uu sheegayaa inuu furihii ku guuleystay, ayna muhiim tahay inay ka xoroobaan maafiyadan ay la shaqaynayaan. wuxuuna isku dayay inuu qanciyo Bark se wuxuu ka oranayaa anigu waan ka daalay nolosha maafiyada, waxaan rabaa inaan nolol cusub dhisto oo aan meel dego. kadib John wuu isaga tegayaa, waxayna u tegayaan isaga iyo intii kaleba madaxa askarta si uu xog ballaaran u siiyo ayna hawsha keligood u dhameeyaan. Yoonhee waxa lagu oranayaa waa inaad isu ekeysiiso shaqaalaha si aad u gasho qolka wasiiradda, waxaana loo dhiibayaa furihii koobiga ah. sidoo kale John waxa loo xil saarayaa inuu la socdo waqtiga ay soo galisay wasiiradda hoteelka. kiibana Yoonhee qolkii ayay galaysaa se waxa arkaysa gabadh ka tirsan shaqaalaha maafiyada, horeyna ayayna u sii soconaysaa. si lama filaan ayay wasiiraddu u imanaysaa hoteelka. John waa uu arkaya, waxaana u sheegaya Yoonhee, kadibna waa uu ka baxayaa hoteelka. Yoonhee waxay u kacaysaa dhanka iyo albaabka dambe, se waxa arkaysa gabadhii mar kale wayna ku qaylinaysaa. kadib Yoonhee way ka baxsanaysaa iyadoo la meel ay gashay ayaa waxa soo qabanaya Bark, waxayna ku oranaysaa waa soo habsantay. markiibana waxay isugu imanayaan meeshii ay ku ballamsanaayeen iyagoo cadayntii wada. kadibna waxay tagayaan xafiiskii madaxa askarta, waxayna arkayaan kaliya baasaboorradoodii oo meesha saaran iyo madaxii askarta oo aan joogin. markiibana waxay si lama filaan u maqlayaan qaylada madaxii askarta. ayaa soo dhanaya eeg markuu dhankii gaadhiga u kaca ayaa waxa mar qura gaadhigii ku soo dhacay madaxii askarta. kadib waa uu naxaya, wuxuuna ku dhahayaa waa kan furihii gaadhigiinu ee meesha ka baxsada. markiibana meesha waxa imanaya John oo ay eriyanayaan ama baacsanayaan Mr. Lee iyo ilaaladiisii. waxa uu kaxaysanayaa gaadhigii, waxbana saaxiibkii uma qaban karo. kadib John ayay la hadhayaan, isna waxa uu tegayaa geerishkii. mise waxa uu arkayaa meeshii oo la gubay gebigeediiba. subaxii dambe waxay arkayaan iyagoo saxaafadu hadal hayso, laguna eedeynaya inay dileen madaxii askarta maadaama CC kaamirada laga dhex arkay. kadib Bark waxa uu go'aansanayaa inuu ka aargoosto, waxaana u tegayaa kii ka sarreeyay madaxa askarta, waxaana u sheegayaa inuu hayo codka dhex maray generaalka iyo wasiiradda. uu rabana inuu Mr. Lee ku diro saddexdoodana uu halkaa kaga guuleystay iyaguna helaan xorriyadoodii. kadib waa uu ka ogolaanaya. Bark waxa uu tegayaa gurigii Mr. Lee, waxaana u dhageysinayaa codkii ay wasiiraddu kula hadlaysay generaalka, waxayna ku odhanaysaa lacagta dhan annaga ayaa qaadanayna. Barkna waxa uu ka odhanayaa beri ayay diyaaradda raacaysaa, kaliya waxay sugaysaa inta lacagta uu gaadhigu u keenayo, ee aniga berigii soo raaca si aad xaqiina u qaadataan. Mr. Lee waa uu ka ogolaanayaa, halkaana Bark waxa ugu hirgelaya qorshihiisii.
waxaana isaga iyo saaxiibadiiba hagaajinayaan gaadhi isla markaana kamarad ayay ku xidheen waxayna isku qaybinayaan kooxo si ay ula socdaan halka uu Park marayo. Parkna waxa uu bilaabayaa qorshihii ahaa inuu gebi ahaanba u dhameeyo ciidanka Mr. Lee iyo Mr. Lee-ba. Sidoo kale Yoon-hee waxay isku ekaysiinaysaa shaqaalaha meesha waxayna galaysaa qolkii uu ku xidhnaa John wayna ka soo daynaysaa ugu dambeyn. Yoon-heena waxay ka xaysanaysaa mootadeedii John taxigiisa ayuu ka xaysanayaa wuxuuna awoodayaa inuu dhammaantood shil geliyo marka laga reebo Mr. Lee. ku qaylinaya waxaanu ku dhufanayaa gaadhiga wuuna dhacayaa taxigii John si waxa badbaadinaya saaxiibkii intaanu gaadhigu qarxin. waxaana meesha soo gaadhaysa Yoon-hee iyo asxaabteedii waxayna ku tuurayaan gawaadhidii kala midaba si aanay u arkin wayna u suurtagelaysaa. Mr. Lee waxa uu baacsanayaa ama gaadhi ku eryanaya Parkna waxa uu gelayaa meel uu bandhig ka socdo waxaanu saaxiibkii ku odhanayaa ku furqiiq ama midab si aanu u arkin Mr. Lee. wayna u suurtagelaysaa kadib Park waxa uu gaadhayaa diyaaradii intaanay kicin ayuu xagga dambe ka soo gelayaa. shidayaa kamaradii gaadhiga iyadoo wasiiradu qiranaysa oo leh aniga kaliya ayaa iska leh lacagtan cid iga qaadi kartaana ma jirto. isla waqtigaas waxa imanaya halkii uu shilku ku galay Mr. Lee. ninkii madaxa askarta ka sareeyay markuu amray in la xidho Mr. Lee ayaa waxa qarxaya gaadhiga Mr. Lee-na halkaas ayuu ku dhimanayaa. wasiiradiina waxa ay baaskoolad ku ridaysaa Park. ibana waxa uu fuulayaa gaadhiga ay lacagtu ku jirtay waxaanu ka boodayaa diyaaradii in yar kadibna waxa uu sii daysanayaa baarashuudkii gaadhiga ku xidhnaa. waxaanu soo gaadhayaa dhulka isla markiiba waxa ku soo yaacaya saaxiibadii isagoo mid walba uu naftiisa u horaya ka kale sidii uu ku badbaadi lahaa. lacagtiiba magaalada oo dhan ku soo daadanaysa saxaafaduna waxay sheegayaan inay dib u heleen xuriyadoodii. sidoo kale waxa la xidhay wasiiradii iyo generaalkii lagu eedeeyay inay ka ganacsan jireen waxyaabo sharci darro ah. Park iyo saaxiibadiina waxay isku diyaariyeen inay tagaan Mareykanka se waxay isweydiinayaan waryaa lacagta fiisaha inoo hayaa. John ayaa soo saaray haddana isla mid kale ayaa soo saaray ugu dambeynna Park ayaa odhanay anaguna tawaan naqana. waxa uu soo dhigayaa sandal lacag ay ka buuxdo u suurtagelinaysa Mareykanku maaha inay dhammaan wadamada wax u safraan. asxaabay filimkeenu halkaas ayuu ku dhamaaday waxaana rajeynayaa inaad ka heshaan subscribe-ka like-ta iyo share-ta aad baanad mahadsantiin boqolkii wayna xidhnay hambalyaduna waa xaqiina. wassalaamu calaykum.